habka saxan ee isticmaalka baraha bulshada. kow cidnaha ku aaminin wax uu kuu soo qoray, ku aamin shakhsiyadiisa. haddii aadan isku meel jooginna waxba ha israacraacsiin oo ka gudub. labo qofna ha u ogolaan inuu kugu xadgudbo. ciddii aad u aragto inay kugu xadgudbayso dooq waxaad u leedahay inaad block saarto ama aad unfriend iska tiraahdo. saddex haddii aad aragto laba qof oo isku dheggan baraha bulshada ama social mediaha adigoon cidna aflagaadayn iskaga gudub. ogow commentiga aad qorayso haddii uu yahay mid gaf ku ah qofka wax aad muujinaysaa wejigaaga qofeed ee aan wanaagsanayn. afar dalaq ha iska dhihin meel aan lagaa wacan oo ilbaxnimo ma ahan ama reemagaalnimo ma ahan in aad gasho meel aan lagaa wacan, tusaale ahaan adiga oo taga aroos aan lagaa wicin camal. shan waxaad soo qorto ama soo dhigto haddii dadka qaar xumaan u arkaan waxba ha ka soo qaadin, sababtoo ah meeshaan uma soo geshid dadka dhan inaad qancisid. lix haddii qof aad shukaansanayso wiil ama gabar ogow meesha aad ku shukaansanayso inay kaa reebi karto taariikh wanaagsan ama mid xun, haddaba ka feejignow. toddobo qofna waalidkiisa ha ka caayin, qofnimadiisana ha ku xadgudbin oo adigaba ma jeclid in lagugu xadgudbo. siddeed qof aad iska barateen baraha bulshada noloshaada iyo sirahaaga nololeed ha la wadaagin oo qofkan adiga ma tihid sabab aad furaha nolosha ugu dhiibtaana ma jirto. reemagaalnimo ama ilbaxnimo ku joog social mediaha ama baraha bulshada, dhanka wanaagsanna ka eeg, mar kastana xumaanta isaga fogow. like dheh muuqaalka, sidoo kale share dheh ama adariska u taabo muuqaalkan. mahadsanid.